السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan isla dhisi doonaa to do list app kaas oo aan ku dhisnay luqadda JavaScript. To do listigan wuxuu u shaqeynayaa sida tan. meeshan u horeysa waxa aan ku haysanaa bilowga hore input, sidoo kalena waxaan haysanaa button. meeshan waxaan ugu qoran list of task text ay ku qoran tahay, hoostiisana waxaan haysanaa button kale. haddii aan hadda isku dayo inaan meesha wax geliyo, text aan geliyo, kadibna text aan ku qoro waxaad arkaysaa textiga meesha aan ku qoray inuu noo soo baxayo. sidoo kale waxaa la socda icon. haddii aan dhowr shay geliyo, intaad doontid ayaad gelin kartaa, ma xadidna. marka haddii hadda aan isku dayo inaan meesha waxba gelin, tusaale oo kale aan enter un iska dhaho, waxaad arkaysaa inuu weydiinayo inaan meesha wax geliyo. listigan haysanana dhammaantood mid ka mid ah haddaad rabtid inaad dhiliididna waxaad samayn kartaa inaad kan koobaad oo kale haddaan rabno hadda inaan iska dhiliidno, waxaan sameynayaa iconkan ayaan ku dhufanayaa, kadibna wuxuu weydiinayaa ma hubtaa inaad inaad dhiliid galinaysid. okay, haddaan taabto waxaad arkaysaa kii koobaad aan haysan inuu meesha ka baxay. buttonkan kalena waa buttonka noo qabanaya inaan markaa rabno inaan dhammaan wada dhiliidno. haddii hadda buttonka aan ku dhufto, waxaad arkaysaa inuu weydiinayo inaan rabo dhammaan inaan wada dhiliido. haddaan okay taabto, waxaad arkaysaa in uu dhammaan listiga aan haysanay meesha ay ka baxeen. marka waa to do list iska yar anagoo ku baran doona JavaScript si qofka JavaScript ku jira ay ugu noqoto practice fiican. haddaba aan bilowno projectiga. okay, marka hore waxaan soo furtay code editor-kayga Visual Studio Code ayaan isticmaalay aniga. marka hore haddaan abuurno 3 page kale haddaan ka dhigo index.html, kan labaadna aan ka dhigo style.css, saddexaadna aan dhaho index.js page JavaScript. marka labadan hadda aan iska sii xirno, kan ayaan hadda kusii bilaabaynaa. haddaan marka hore dhaho HTML5 kadibna title-kan ka dhigo. title-kan waxaan ka dhigaynaa to do list. okay, si marka aan iskula aragno wax walba aan sameynayno, haddaan ku furo live server-ka. yes, waa kana live server-keeni. page-kan kalena waa page-keeni uu nagu jiray to do listiga hore aan sameynay, laakiin kan cusub waa hadda aan ku baranayno, yacni aan ku dhisayno. okay, marka saas ayaan isku arkaynaa. marka hore haddaan abuuro section kadibna aan dhaho containerka waa meesha ay nagu jirayaan dhammaan, waa meesha noo wada haynayso dhammaan, yacni to do listigan, yacni inputka iyo listiga. laba qayb ayaan u kala qaybin doonaa, qayb koobaad iyo qayb labaad, laakiin containerka waa qaybta dhammaan wuu noo wada hayn doonaa isaga. marka qaybta koobaad haddaan dhaho item class, dhaho item u bixiyo div classkiisa waa item, kadibna aan dhaho formka marka waxa igu sii dhex jiraya input, yacni waxa igu dhex jira input iyo button, waa qaybtan koobaad waaye itemkan, classkan, formka marka ayaan sii dhex gelinaa input iyo buttonkan. okay, haddaan dhaho input, typekiisana aan dhaho text. okay, placeholder naan dhaho placeholder meesha nagu dhex qormayo. placeholder-ka waa meeshan add a task ay nagu qoran tahay, add a task. okay, waxaa nagu xiga button. buttonkan haddaan ka dhigano magaciisa add ayaa la dhahaa. marka hadda qaybtan koobaad saan ayaan ku dhamaynay, oo waa qaybta inputka iyo buttonka. qaybta labaad haddaan u gudubno, waxaa u horeysa list, yacni text ay ku qoran tahay list of task iyo buttonkaas. haddaan dhaho list of task taskiga marka waxaa nagu xiga xariijin ayaan udhexaysay. haddaad aragtay hadda aan to do listiga xariijintaas u dhaxaysa, yacni xariijintan meesha nagu sawiran hr haddaan dhahno marka xariijintaas. marka
markii aan wax gelino tusaale kale haddaan gelino 1 ama wax shay markaan gelino waxa noo soo baxay si toos ah noo soo baxay yani list ay ku qoran tahay wixii aan meesha gelinay icon wata marka horeysa laakiin waxa hadda si dynamic camal aan u sameeynay si JavaScript ahaan ah laakiin marka horeysa waxaan rabnaa inaan ku abuurno si yani HTML ah si la arkayo camal oo kale hadhow yani ka tirtiri doonaa HTML-ka oo waxaan ku sameyn doonaa JavaScript-ga laakiin marka hore hadda waxaan ku sameysanaynaa HTML marka UL hadaan UL kadibna listiga marka hadaan kusoo qoro task 1 kadibna aan dhaho button-kan sababtan u sameynay waxa waa button-ka aan dhex gelinayo icon-ka ayaan dhex gelinayaa marka icon-ka saan u helno hadaan tagno Google kadibna aan dhaho font awesome cdn kadibna aan soo qaadano linkigan intan aan ku okay hadana icon-ka hadaan soo qaadano aan dhaho font awesome icons and icon marka waxaan soo qaadana delete camal ah hadaan ku qoro delete kadibna enter aan dhaho hoos socona waa kana icon-kan haysano kan ayaan soo copy gareysanaya okay icon-keena sidaas ayaan ku haysanaa haddaan marka aan button-ka dhex dhigo yes waa kana icon-keena sidaas ayuu nagu soo galay waxa u dambeeya aan haysanayna waxa waaye waa button-ka aan dhammaan ka wada delete garaynayno button-kan haddaan ku qorno clear kadibna glass aan u bixiyo glass aan hadhow kusii install garaysano CSS-ka btn haddaan usii bixiyo sidoo kale UL-kan haddaan asna glass u sameeyo nadhaho to do okay intaas ayay noogu eg tahay yani HTML-keena input-ka waan haysanaa button-ka waan haysanaa listiga waan haysanaa textiga listiga sidoo kale listigeena ay nagu qoran text 1 iyo icon-kii button-kii marka hadda aan u gudubno let's say CSS hadda ma quruxsana laakiin si aan sidaas ugu sameyno quruxda ah waxaan u gudbaynaa CSS okay CSS-kan ayaan hadda bilaabeynaa CSS-ka marka horeysa aan ku xirno linkiga CSS lana link kadibna waxaan leenahay style.css okay waa kana page-kani CSS-ka marka horeysa waxa aan ka bilaabeynaa waxa waaye body background-ka yani color-kan ka dhignaa background-ka color-ka color-kan aan isticmaalayaa 4158D0 okay waa color blue-ga waaye okay aan u gudubna marka hadana section-ka qaybtana section-ka width ayaan waxaan leeyahay width-ka waxaad ka dhigtaa balaca 100% okay waxaan ku darayaa padding baan ku darayaa padding-ka marka waxaan leeyahay top and bottom and top waxaan leeyahay 0 left and right waxaan leenahay 30 pixel okay ujeeda inuu xoogaa ka soo yaro durkay yani leftiga dhinacan okay container-keena aan u gudubno container-ka marka waxaan leenahay max width marka ugu yar oo lahaan karo that ram halkii ram waa 16 pixel marka waxaan leenahay max width-ka waxaan leenahay 30 pixel 30 ram baan ka dhigay pixel maaha waxaan ku daranaa marka margin top and bottom waxaan leenahay 2 ram left and right waxaan ka dhignaa automatic yani dhexda camal marka container-kan hadda waan sameysana waxaan u gudbaynaa itemka marka waa qaybta koowaad waa qaybta input-ka iyo button-ka nagu dhex jiro haddaan dhaho marka
itemka waxaan u sameynayaa background isla colorka ayaan isticmaalayaan bodyga ku isticmaalay sidoo kale background image ayaan leeyahay background image ka marka image ma dhex gelina laakiin waxaan isticmaalnaa linear gradient oo ah color yani isku dhex jira sida yani waxa arkaysaa yani color isku dhex jira waaye colorradan hal color ma aha qaybtan hoose waa iska yar blue qaybtan kale dhar waxa waaye color kale oo nooc kale ah qaybtan waa dhar color kale oo jaalo ah marka waa color isku dhex jira hal color ma aha oo yani tira badan way xagan ma gelinayaa okay 3D color koobaad waxaan ka dhignaa marka waxaan leenahay 41 dharkan waxaan leenahay 0% kaas aad buu ma arka colorkan oo istaan baa laga arkaa color kale aan labada isticmaalayo color isu qoran waay marka waxaan leeyahay 850 0 waxaan leenahay kan waxaan ka dhignaa 46% colorka u dambeeyana waxaan leenahay FF Z E F ما F مع تضغطها ويحان خلدي yes لبا F اللي واي كانوا حان كدينا مركا 100% اوكي واكنا مركا ستا ينوغ صبحي aan ku darno waxaan ku daranaa saas aan yar darjiyo saan u arki karno page koran waxaan ku daranaa padding waxaan leenahay 2 ram and 0 arkatid sidoo kale waxaan leenahay margin waxaan ku daranaa asna 2 ram ah laakiin out left and right sidoo kale waxaan ku daranaa border radius and 5 pixel okay meeshaan colorkan waa yara khalday colorkan aan yara khalday 41 58 0 waaye yes okay intaas itemkan ana ahaato itemka marka waxaan ugu sii dhex jira form marka formka waa meesha noo haysa inputka iyo buttonka waxaan leeyahay display flex ha noqdaan display flex waxa waaye ha noqdaan yani kuwa isbarbar jiifa saas yani isku barbar yaala oo hadhow isan ugu noqon kuwa ma aragtay social camal kuwa isbarbar jiifa justify contentiga waxaan leenahay waxaad ka dhigtaa center align items is center also okay hadda dhexda tageen sidoo kale waxaan leenahay item form input hadda inputkan u tagno font sizekiisa waxaan ka dhignaa yani size ku lahaan karo waxa weeye n1 ram padding baan ku dareynaa 20 pixel top and bottom and 15 pixel oo left and right width baan ku daranaa sidoo kale widthka waxaan leenahay 60% na noqdaan 60% camal oo kale oo ay xoogaa yaro weynaa hadda okay sidoo kale backgroundka waxaan ka dhiganaa transparent oo background nooma laha hadaad aragtid yani background ma laha sidoo kale border none ma noo laha waxaan leenahay border none markaan dul tagana waxaad arkaysaa in noo soo baxayso yani wax border camal marka outline kaasaan waxaan leenahay outline none baan leenahay isna okay colorkana u tagno colorkana waxaan ka dhiganaa color 000 color black camal okay waa kana colorkin sidoo kale waxaa naga dhiman xariijintaas hoose
xariijinta hoostana waxaan leenahay border 1 pixel solid RGB 255 0.7 sorry meesha waxaan ka dhigay border bottom waaye border bottom aan ka waday waa kana xariijinta hoostana okay and colorkii xaggan oo add task ay nagu qornayd add task meesha ay nagu qoran tahayna oo isbedelo color kale noqdo marka add task-ga waxaan ugu dhex qornaa placeholder-ka ugu dhex qornaa placeholder color marka waxaan u sameynaa isna iska yara black 19 okay kana marka okay input-kan intaas ayuu nagu dhan yahay aan u gudubna marka button-ka form and button-kana u gudubna hadda width-ka marka hore waxaan leenahay 12% sidoo kale padding baan ku daraynaa padding waxaan leenahay 0.8 ram sidoo kale waxaan leenahay border 1 pixel solid transparent sidoo kale waxaan ku daraynaa border radius 5 pixel yes waxaa kaloo naga dhiman font size-kana waxaan leenahay 15 pixel yes I think in hadda isku mid yihiin yes isku mid waa hadda sax okay button-ka intaan kaga gudubno aan u tagno textiga ay ku qoran tahay list of taskigaas h2 ayuu nagu dhex jiray h2 ayaa noo haysay h2 waxaa leeyahay h2 waxaa dhahdaa font size-ka waxaan ka dhiganaa 1.5 ram sidoo kale waxaan ku darayaa margin button-ka marka waa waxaan leenahay 1 ram yani hoosta ha ka durko margin button-ka oo iyoso hoosta ka gelin hadhow yani isma hadhow yani ma rabo inay noqdaan kuwa yani ishoos yaala camal oo aada isku hoosta isaga jira okay aan u gudubna marka waxaan hadda u gudbaynaa waxaan kale u gudbaynaa ul-ka iyo listiga ul-kii listiga u gudubno background waxaan leenahay background waxaan ka dhigtaa color gray kaas padding ugu dar padding marka waxaan ku darayaa padding-ka waxaan ka dhiganaa let's say padding-ka yes padding waxay noo tahay 13 pixel يعني 13 pixel yes in 13 tahay okay sidoo kale font size-ka waxaan leenahay font size-ka waxaa ka dhigtaa font size waxaan ku daranaa 14 pixel yes list style baan leenahay sidoo kale dhibicda ayaan meesha aan ka qaadnanan sidoo kale waxaan ku daranaa border radius leenaasna 5 pixel yes I think intaas noo tahay yes sidoo kale waxaan kusoo darayaa position relative aan leeyahay okay ul-kan intaas aan kaga gudubna asna listiga aan u gudubna marka buttonka marka waa meesha ku dhex jira iconka list waxaan leenahay button
waxaan leeyahay marka font size waxaa ka dhigtaa font size buttonka waxaan ka dhiganaa 14 pixel. yes kan aan ka dhigno let's say kan aan dhahno 50. okay, position waxaan leenahay marka position kan waxaan ka dhignaa position absolutely. sidoo kale waxaan ku daraynaa right baan leenahay 16 pixel. okay, dhinacaas tagay marka waa ka durjinaynaa. sidoo kale wax border ma laha, border none. sidoo kale background ma laha, background waxaan leenahay transparent. okay, outline aan ku darno waxaan leenahay outline none. okay, intaas listigana iyo iconkana waaye inay isku mid yihiin aan fiiriyo. isku mid waaye. okay, xoogaa ujeeda inuu baash yaro dhaqdhaqaaqayso oo sida tan oo kale nooma taagna. marka haddaan ku daro, haddaan dhaho calaamadan in badan baa arkaysa haddaad ku jirtid css oo kale. calaamadan waxaa waye marka dhammaan marka wax tilmaami sidoo kale yani haddaan dhaho margin 0 padding aan dhaho 0 sidoo kale aan ku daro box sizing border box. okay, si toos hadana noqotay. okay, intaas I think inoo tahay. border inuu leeyahay sumud border xoogaa border inuu leeyahay moodaysaa ul keena waxaan leenahay border none. yes okay, waxa u dambeeya aan u gudbina waxa waaye margin aan ku darno. sidoo kale I think margin noo leeyahay waxaan leenahay 10 pixel dhinac walba ah 10 pixel aan ku darna oo dhinac walba ah sadurka. okay, waxa u dambeeya aan u gudbina btn waa buttonkan u dambeeya. buttonkan u dambeeya waxaan leenahay margin waxaad tirahdaa 10 pixel top and right and 0 left and right. yani top and bottom aan ka wadaa 10 pixel ah iyo right and left 0 ah. padding ayaan leenahay. padding waxaan ka dhiganaa 10 pixel top and bottom and 16 pixel ah left and right. sidoo kale waxaan ku daranaa font size waxaan leenahay 18 pixel. yes I think isku mid yihiin. xoogaa meeshaan wax yaro dhexeeyaan. ulkan margin aan ku darayn filaya margin nooma laha. I think inay tahay let's say margin waxaan ku daranaa okay 6 pixel and 0. yes hadda iswaafaqday. I think in hadda iswaafaqday. okay, marka intaan waaye hadda css-kan hadda sidan ugu dhammaystiran yahay in isku mid yihiin aan filayaa. isku mid waaye sax. okay, waxa u dambeeya hadda aan u gudbino waxa waaye javascript-geena oo siduu nagu shaqeeyo to do listigeena. marka aan u gudubna qaybta javascript. okay, hadda waxaan soo gaarnay marka qaybteennii javascript. pagekani javascript aan ku xirna marka pageka html. waxaan leenahay script, waxaan leenahay source index dot
js. Okay, taasoo nagu xiran yahay. marka hore waxaan sameynay waxa way dhammaan waxaan soo aruursanaya variable-ka constant input equal to document-iga tag kadibna query selector ki soo qoonay marka waxa way input wax galaas ma laha wax id na ma laha just input way sidoo kale waxaan soo qabanayaa button-kan way add isna waxaan leenahay waxaan bixinaa primer equal to document-iga taasna query selector kadib waxaan leenahay button. Okay, sidoo kale waxaan soo qabanaa listiga waxaan leenahay to do equal to document.query selector noo soo qoran marka waxa to do kan glass inaa siiya dot inaa siiya ujeedaa sababta glass waaye wuxuu haystaa glass buu haystaa to do sidoo kale kan glass buu haystaa asna waa button-kan u dambeeya constant leeyahay btn equal to document-iga tagasna duna query selector kadibna waxaan leenahay dot btn. Okay, dhammaan variable-ka marka hadda ku haysanaa waxa hore aan sameynay waxa way function baan sameynayaa la dhaho add a task function la dhaho task function-ka dhammaan aan wada gashanayno waxaan leeyahay arrow function. Okay, waxa aan rabaa in aan sameeyo marka hore listigan yani si javascript ahaan si dynamic ahaan inaan sameeyna rano javascript ahaan hadda sidaan is leenahay hadda meesha waan ka saarayna sababta javascript aan rabnaa inaan ku sameeyno marka hore html ayuu nagu sameysana laakiin javascript aan ku sameysana marka waxaan leeyahay const list element oo bixinaya equal to document.create ismay waan leeyahay marka elementiga uu sameynaya marka waxa waaye waa list. sidoo kale waxaan sameysanayaa button-ka aan sameynaya waa kan waay oo listiga ku dhex jira asna sameynayna const waan leenahay del bt waxaan u bixinayaa del element isaga bixiyaba document and create andaho create element waaye create element button aan leenahay. Okay, button-ka maxaa ku dhex jira marka icon baa ku dhex jira ugu sii dhex jira button-ka oo waa kana button-ka icon-keeni delete-kan ugu dhex jiray markaas waxaan leeyahay waxay soo qabataa del element dot inner html equal to kadib waxaan dhex gelinaa linkigii waxaan dhex gelinaa icon-ka. Okay, waa kana. Okay, intaas waa sameysan yahay hadda waxaan isticmaalayaa if statement hadda waxaan sameynaynaa marka haddii input-kan wax la geliyo waxa soo dhacaan haddii kale waxa soo dhacaan if statement-na marka isticmaalaynaa if statement baan leeyahay if statement waxaan leeyahay marka horeysa haddii input-ka dot value wixii la gelinayo waa marka input-ka waa kan aysano dot value wixii la gelinayo waa shayga la gelinayay is not empty baan leeyahay ma wan baan qornay is not empty hadduu ahayn meel bannaan bay ka dhigantay haddii waxa meeshan la geliyay aysan ahayn wax bannaan meel bannaan haddaysan ahayn maxaa dhacay wixii dhacay intaan ku qorna marka waxaan leenahay list element dot text content waxaan leenahay equal to input dot value sidoo kale waxaan leenahay list elementiga waxaad dhex gelisaa append child yani del elementiga waxaad dhex gelisaa list elementiga sababta listiga waxa uu ku yani button-kan delete-ka icon-ka delete-ka noo haya wuxuu ku dhex jiraa listiga markaas waxaan leenahay list elementiga dot append child del element
listiga asna xagee ku dhex jiraa listigaan haysanay xagee buu kusii dhex jiraa ul buu kusii dhex jiraa markaas waxaan leenahay to do dot append child append child asna waxaan leenahay list element okay hadda aan isla aragna marka buttonkan hadda soo qabanaya primer dot add event listener ka isaga wuxuu dhageysanayaa wax click buu dhageysanayaa haddii la click gareeyo haddii yacni la taabto oo click la siiyo kadib waxaan leenahay add a task yacni waxaan ugu wacdaa functionkan ugu wac okay hadda aan isla aragna marka haddaan hadda one okay baasha soo boodaysa baashaas waxaa la dhahaa prevent default dot prevent default method waaye okay hadda aan gelina marka one yes si automatic ah nagu soo baxaya sidoo kale textiga markaan meesha aan gelino textiga meeshu taagan yahay taasna aan xalino waxaan leenahay taasna inputka dot value wixii la geliyo equal to empty ha noqdo meel bannaan okay hadda aan tijaabina marka aan gelino number okay aan gelino iska gelino lase quraac okay ujeeda marka sidaas toos nagu soo baxaya waan fahnaa marka haddii hadda wax la geliyaan niri if baan niri haddii waxaas la geliyo waxaasaa dhacaan if waa haddii marka haddii kale maxaa dhacaya marka haddii kale waxa waaye haddii wax la gelin waayo maxaa dhacaya waaye else baan leenahay else haddii kale oo meesha wax la gelin waayo alert baan leenahay waxaan leenahay please enter something okay haddii hadda meesha aan clicks ka siino waxba gelin wuxuu isoo saarayaa please enter something okay intaas waan fahnay waxaan hadda kaloo ku xijinaynaa iconkan see ku delete asna ku delete garaynaynaa waxaan soo qabanaynaa delete element asna soo qabana dot add event listener baan leenahay click buu dhageysanayaa event listener kan haddii la click gareeyo buttonkan la taabto kadib waxaan leenahay function kadib waxaan leenahay okay yes meesha xigtay aan dhahna marka hadda const baan leenahay delete aan u bixinaynaa delete equal to confine baan leenahay marka confine marka laba option baan siinayaa oo mid okay ah iyo mid cancel ah markaas waxaan leenahay marka waxaan leenahay camal oo kale ma hubtaa inaad delete garaysid yani hadda markaan dhahno one markaan ku dhufano yani wuxuu noo soo saarayaa alert sheegaya ma hubtaa inaad delete garanaysid sababtoo qofka gacanta uga dhici karta soo wixii mataqaana aan delete garanayn waxaas marka waxa ujeeda yani inuu noo soo saaray laba option okay afbrit midaan kale afbrit micnaheeda cancel waaye luqad kale waxaan ku qoran tahay computerka yani luqad kale laakiin afbrit cancel baa laga wadaa marka okay haddaan taabano waxa ma dhacayaan ujeedaa waxa ma dhacayaan sababtoo hadda weli maana sii sheegin wixii dhaci lahaa keliya un waxaan qoranay alert noo sheegaya in uu noo soo saarmo hubtaa inaad delete garanaysid okay si aan u maamulno marka if statement baan isticmaalaynaa waxaan leenahay if delete equal to true hadduu sax yahay sababtoo haddii lagu dhufto uu sax yahay maxaa dhacaya waxaan leenahay delete delete ma waxaan leenahay const parent baan leenahay equal to this dot parent node
okay sidoo kale waxaan leenahay parent dot remove child ma remove kali waaye. okay hadda aan isla aragno one. okay aan ku dhufano iconka muuqtaa. okay aan ku dhufano. okay meesha waa ka baxay. sababta parent waxaan u leenahay sababta waxaan leenahay yani meesha asoo dhan ka wada baxo. delete element kali marna inuu naga delete waxaan rabnaa xataa ul kii meesha dhan inay ka wada baxaan. okay intaas isla faahna sidoo kale aan markaan hadda ku dhufano marka hore option na siinayo kadibna haddii aan okay haddaan cancel taabano wakaas haddaan okay like taabano meesha ka baxaya. waxa u dambeeya aan sameynayno waa buttonkan waaye oo dhammaan aan ka wada delete garaynayno. buttonkan aan soo qabta asna btn la dhahayay dot add event listener baan ku daray asna haddii la taabto ama la click gareeyo click baan leeyahay click arrow function aan isticmaalayaa. buttonkan waxaan leenahay haddii la taabto if baan leenahay if haddii waxaa leenahay confine asna noo saar option ah noo sheegaya. kadib waxaa leenahay are you sure haddii qofku u taabto waxaan leenahay are you sure to delete all task. okay kadib waxaan leenahay haddii qofku markaas dhaho yes kaas waxaan leenahay to do list and meesha ugu wada baxan to do list dot inner html equal to empty okay asla aragna marka hadda 1 2 3 okay aan taabto unoo saaraya alert sheegay are you sure to delete all task. okay haddaan taabto dhammaan meesha waa ka wada baxay. hadda projectkan sidaasuu noogu dhisan yahay yani mid walba saasuu noogu shaqeynaya waan wax gelin wayno ujeedaa like haddii kan aan rabno inaan iska dhiliidana saas iska dhiliidi karnaa. haddaan rabno inaan dhammaan iska wada dhiliidno waxaan iska gelgelino aan rabno inaan buttonkan dhammaan wada dhiliidina isna waan ka delete garayn karnaa. okay aan taaban. okay waxaan rajeynayaa projectkan wax yar ka fahantay haddii aad javascript ku jirtay runtiina ku noqonayo practice fiican. projectkan intaas noogu egyahay waxaan iga tegayaa intaas nabadgelyo.